kooxda ahlu sunna oo dagaal qaraar looga saaray Guriceel 26 bishii Oktoobar ee sanadkii galbaday ayaa hadda la soo sheegayaa in ay ku kala tagayaan deegaanka Bohol oo muddo ka badan 3 bilood ay fariisimo waaweyn ku lahaayeen. Haddaba maxaa keenay in ahlu sunnada Bohol ay mowqifkoodii soo gabagabeeyaan? Maxaa ka jira in Macalin Maxamuud uu tanaasulay kadib markii uu kursi xildhibaan helay wiilkiisa Cabdisamed Macalin? Miyay heshiis qarsoodi ah gaareen madaxweyne Qoorqoor iyo hoggaanka guud ee ahlu sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan? xoga badan oo ka qarsoon isla markaana ku saabsan ahlu sunnada Bohol joogta ayaan warbixintan kugula wadaagi doonaa. Marka hore waxaan ka codsanayaa daawade inaad muuqaalkan like saarto si uu u gaaro saaxiibo fara badan, una share garee saaxiibada Facebook oo kugu weheliya si uu u gaaro xogtan qarsoodida ah isla markaana ay wax uga ogaadaan. Cabdisamed Macalin Maxamuud oo uu dhalay hogaamiyaha guud ee ahlu sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa maalmo ka hor loo doortay xildhibaan heer federaal, waxaana la siiyay kursiga sumadiisu tahay Hob 139, taasi oo keentay in kooxda ay soo afjarto mowqifkeedii ka dhanka ahaa maamulka Galmudug, isla markaana ay taasi dhabada u xaarayso in la soo afjaro waayihii ahlu sunnada Bohol. Dadka qaar ayaa sheegay in Macalin Maxamuud hoggaanka guud ee ahlu sunna ujeedkiisu ahaa in wiilkiisa uu helo xildhibaan federaal ah, balse aysan jirin wax caqiide ah oo uu u galay dagaalkii ay wiilasha badan ku dhinteen ee Guriceel ka dhacay dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2021. waana arrin kale oo ceel ku ridi karta in mar dambe la abaabulo ahlu sunna hubaysan. Hogaamiyaha guud ee Galmudug Qoorqoor ayay macquul tahay in uu la fariisto Macalin Maxamuud Sheekh Xasan isaga oo u maraya Cabdisamed Macalin Maxamuud ka hadda xildhibaanka noqday. Wayna fududahay bay leeyihiin dadka indhaha ku hayay dagaaladii Guriceel ka dhacay in la kala diro hoggaanka ahlu sunnada Bohol ku sugan. Cabdisamed Macalin Maxamuud oo horay wasiir u soo noqday dawladii Xasan Sheekh ayaa aad loogu xantaa in uu lacag badan ku cuno madaxa wadaadka mayalka adag ee dhalay, waxayna hadda xaaladda u eg tahay in Bohol lagu kala boodi doono maadaama ay isku soo dhawaadeen Qoorqoor iyo curadka hogaamiyaha ahlu sunna. Haddii la kala diro ahlu sunnada Bohol waa culays kale oo ka degay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, kaasi oo hadda ku mashquulsan doorashada kuraasta golaha shacabka ee deegaanada Galmudug xilli uu goor dhow shaaciyay qabashada 8 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Haddii ay Bohol ku kala tagto hoggaanka ahlu sunna, bulshada Guriceel iyo Tandhuusa Mareeb ayaa soo dhaweyn weyn u samayn doonta wiilasha sita qoryaha ee Bohol ku sugan si ay ula midoobaan qoysaskoodii. Haddaba daawade, ahlu sunnada Bohol ku sugan halkay ku dambayn doontaa? Waa su'aasha u baahan inaad ka jawaabto. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka daawatay, waxaan ku xasuusinayaa inaad like saarto si uu u gaaro saaxiibo fara badan, una share garee saaxiibada qiimaha leh ee Facebook kugu weheliya.